أهلا وسهلا داوديال مeel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha halaba maalin kasta aad kala socotaan bartena youtube-ka ee ciyaaraha latest tube iyo weliba muuqaal cusub oo xiiso leh maanta guud ahaan waxaan ku eegi doonaa barnaamijkeena ciyaaraha wararka ugu dambeeya ee horyaalada Premier League siba kulamada caleeyo la ciyaaray iyo weliba dabcan kulamada maanta la filay in la ciyaaro horyaalka dalka Ingiriiska كوعو وين قاركود لقراعي هلقا قاركودنا بريقا لو قبتي طبعا سو كلا توحان اينا كل مدى مانتيا فالغين دير ايكو سمين دي نصيبا كل مدى ايش الوضع هايو كل مدى ارسنال يو سودهامبتون يوليبا كلان كالي دوربي كوعها ليفربول يوليبا توتنهام هوسبر وها كوع هربوضي هوريالكيا دولكو انجريسكا فالغين دير او غاريان كو سمين دونا وحا سو كلا تو ايجي دونا horyaalka dalka Isbaanishka ee La Liga kooxda Real halkay ku jida hadaad nagu cusubtahay subscribe noo saar danaga mitaya like nagu dhirageli saan helno saaxiibo wanaagsan sidaadoo kale atiyo kulamada caleeyo ciyaar horyaalka Premier League ayaad moodaa in waxa jira laba kulan oo kaliya kuwaas oo dhaxmaray kooxaha Wolverhampton iyo waliba kooxda kubadda cagta Chelsea kooxda kubadda cagta Chelsea la hormartay goolkii koowaad ciyaaryahan Giroud ayaa goolan caadiyan u xiray kooxda kubadda cagta Chelsea qaybtii labaad waxaana daqiiqad kadib daqiiqadii 6aad goolkii barbaraha u dhalay kooxda kubadda cagta Wolves ciyaaryahan Bodens kaasad moodo in kooxda Chelsea aad moodo in weerarkoodu uusan ahayn mid aan caadi ahayn balse uu dabayti daqiiqadii dheerigeed daqiiqadii additional chance ayaa ciyaaryahan Nacho goolan caadi ahayn oo farsamaysan gadaal ka maray goolaliyaha kooxda kubadda cagta Chelsea Mendy kaasad moodo inuu yahay gool dahabi gool fantastica waxaana uu qaatay abaalmarinta ciyaaryahanka garoonka ciyaaryahan Neto ayaa ciyaaryahan u dhashay dalka Portugiiska inta badan ka soo dhaxmuuday kulamada Wolves dhanka kale hadii aanayno taageerayaasha kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa aad u niyadjabay ciyaarta natiijada ciyaarta oo ahayd 2-1 ay sida in kooxda kubadda cagta Albaydarisay fursad ay ku hanan lahayd ama ay ku hogaamin lahayd horyaalka Premier League waxaana ay dhaheen in ciyaaryahanka Havertz uusan habeenku caleetiya si wanaagsan u soo dhaxmuuqanin garoonka soo kaleetan uusan ku fiicneen inuu matalo kooxda kubadda cagta Blues waxa soo kaleetay ay taageerayaasha kooxda kubadda cagta Chelsea dhanka Instagram ay ku soo qoreen in ciyaaryahan Timo Werner uusan ku fiicneen inuu lambar ciyaarsiyo dhanka garabka balse ciyaaryahankan uu ku fiican in la ciyaarsiyo weerar si ayuuna gool badan ku dhalin kara waxa soo kaleetay ay eedeen dul saareen tababaraha kooxda kubadda cagta Blues Lampard inuu ciyaarsin waayay ciyaaryahan Giroud 90 daqiiqo waxa uu leeyahay markuu ka baxay ciyaaryahan Giroud ciyaarta waxaan moodaa inay isku qasmeen dhamaan kooxda kubadda cagta Chelsea taas ayaa waxay kaliftay in kooxda kubadda cagta Wolves ay heleen goolkii guusha daqiiqadii ugu dambeeyay sidaayna iminka kooxda kubadda cagta Chelsea oo dhadhaceen xagga iyo kaalintii shanaad waxa ilaa iminka hogaamin horyaalka dalka Premier League kooxda kubadda cagta Tottenham iyo Liverpool oo min 25 dhibcood leh kulanka kale oo la filay waa kulankii dhaxmaray kooxda kubadda cagta Manchester City iyo kooxda kubadda cagta West Bromwich Albion waxaan moodaa inuu yahay kulan aan caadi ahayn kulan la eegi karo kooxda kubadda cagta City ayaa si fudud u badin karto balse maysan noqonin ciyaaryahan Gundogan ayaa kooxda City u dhalay goolkii ugu horeeyay daqiiqadii 30aad halka daqiiqadii 43aad ciyaaryahan Diaz gool Angola uu iska dhalisay ciyaarta ku dhamaatay qaybtii hore 1-1 qaybtii labaad ayaa wax dhigi karay kooxda City goolal badan ay keeni doonta balse maysan noqon ciyaartu waxay ku soo idlaatay 1-1 waxa la arkay ama kaamiradu ay qabsadeen tababaraha kooxda kubadda cagta Man City Pep Guardiola oo ku qaylinaya ama ka codsanaya rifariga inuu daqiiqad dheeri ama daqiiqad zayd ku daro balse arintaasi lagama aqbalin marka waxa laga yaabaa inuu ganax ku mutoosto arintaasi oo ah arin aan shaqadiiseen uu furaha la galay dhan kale horyaalada maanta la filay in la ciyaaro hadii aanayno Arsenal ayaa waxay qaabili doontaa kooxda kubadda cagta Southampton 9 habeenimo halka kooxda kubadda cagta Leeds ay qaabili doonto naadiga Newcastle United Leicester ayaa martigelin doonta kooxda kubadda cagta Everton waa 9 habeenimo kulamada kale oo la filay inay dhacaan 11 habeenimo Fulham iyo Brighton halka Liverpool ay soo dhaweyn doonto kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur uu maamulo tababare Jose Mourinho the special one waxa soo kale ciyaari doono
kowda habeenimo ciyaaryahan aan dhaho kooxda West Ham iyo waliba kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace waxaa jiro soo kale falaqeena ku sameyn doono kulanka dhexmari doono kooxda kubadda cagta Arsenal iyo waliba kooxda kubadda cagta ee Southampton haddii ay waxaan moodaa in kooxda kubadda cagta Arsenal iminka ay ku jiraan kaalintii 15aad iyagoo leh 13 dhibcood halka kooxda kubadda cagta Southampton ay ku jiraan kaalintii 4aad iyagoo leh 23 dhibcood marka waxaan dhihi karnaa kooxda kubadda cagta The Gunners saddexdii kulan ugu dambeeyay ee horyaalka Premier League waa laga badiyay soo kale kooxda kubadda cagta Southampton labada kulan ugu dambeeyay horyaalka Premier League waa ay badiyeen marka Arsenal caawa ma aqbali doonto in laga badiyo siba iyagoo jooga gurigooda marka taariikh ahaan ma dhixin in kooxda kubadda cagta The Gunners laga badiyo 4 jeer isku xigto horyaalka Premier League caawa haddii dhacdo waa wax kale marka waxa la dhihi karaa kubadda cagta ama rajada kooxda kubadda cagta Arsenal ee dhanka top 4 inay u dhamaatay marka macallin Arteta wuxuu ku qasban yahay caawa in kooxdiisa ay badiso si uu helo 3 dhibcood oo muhiim ah oo hore ugu soo kaco haddii se kooxda kubadda cagta Southampton ay ka badiso waxaad moodaa in xaaladda kooxda kubadda cagta The Gunners ilaa rajada ciyaariya rajada tababaraha kooxdaasi Gunners Arteta ee garoonka Emirates Stadium uu yahay mid aanan inta badan la hubin kulanka kale oo derbiga isha lagu wadahay caawa 11 habeenimo waa kulankii dhexmari doono kooxda kubadda cagta Liverpool ku guuleystay horyaalka Premier League ayaga ugu dambeeyay iyo waliba kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur uu maamulo macallin Jose Mourinho imika hogaaminayso horyaalka dalka Premier League labadan kooxood ayaa isku dhibco ah balse dhanka goal triska ayaa moodaa in kooxda kubadda cagta ee Tottenham horeyso iyagoo leh 14 gool oo faa'iido halka kooxda kubadda cagta Liverpool ay leedahay 9 gool oo faa'iido marka kulanka caawa koox walba waxay doonaysaa inay badiso si ay u qabato horyaalka Premier League koox walba dan uma jirto in laga badiyo balse waxa soo kale la dhihi karaa barbardhaha ayaan moodaa inuu yahay mid iska caadi ah balse caaw waxaa la filayaa in koox ay badin doonto tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa waxa uu sheegay in iminka aad moodo in hoggaanka hayaan kooxda kubadda cagta Tottenham uu maalumaran Jose Mourinho balse hadallada uu ku hadlay Jose Mourinho waxay yihiin kuwa aan la qaadan karin intaba soo kale waa kuwa xiisaha Premier League hoos u dhigi karo marka waa inuu isdejiyaa lana sugaa siba wuxuu sugi doonaa kulanka ay la yeelan doono hadduu naga badiyo waxa la dhihi karaa Jose Mourinho wuxuu isku day doonaa inuu horyaalka qaado balse yaa isgaaray weli horyaalka waa bilow waxaa soo kale looga doonaa caawo ciyaarnada Mohamed Salah iyo Harry Kane wow waa looga doonaa caawo awoodooda iyo waliba waxaa lagu fadhiyaa in kooxahooda ay noqdaan ku hogaamin doono horyaalka Premier League iminka labada kooxood ayaa waxay leeyihiin min 25 dhibcood marka kooxdii badisa ayaa si toos la wareegi doonto hogaaminta horyaalka EPL-ka cagayo la leeyahay Spanishka haddii aan eegno kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa 3 xal jirtay kooxda kubadda cagta Athletic Club sida ayna kooxda kubadda cagta Real iminka waxay soo beegsadeen kaalintii 3aad iyagoo leh 26 dhibcood waxa iminka hogaaminaya horyaalka La Liga Spanishka kooxda kubadda cagta Real Sociedad oo martii noqonayso kooxda kubadda cagta ee Barcelona kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa ku jirta iminka kaalmihii aad moodaa in ay kooxda Barcelona ay zaid u hooseyso Barcelona ayaa waxa ay leeyihiin 17 dhibcood soo kale waxa ku jiraan kaalintii 8aad balse kulanka caawa la ciyaari doonaan kooxda hogaaminaysa horyaalka ayaa mid muhiim ah mid loogu fadhiyo in kooxda kubadda cagta Catalana ay badiso ciyaaryahan Lionel Messi ayaa looga fadhiyaa in kooxdiisa uu ku fajiyo si uu u gaarsiiyo 20 dhibcood Real Sociedad ayaa ilaa iminka leh 26 dhibcood Athletic Madrid ayaa leh 26 dhibcood sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Real waxay leedahay 26 waxaan moodaa in saddexdan kooxoodba ay leeyihiin من 26 dhibcood balse dhanka goolasha aad moodaa inay faa'iidada u badan tahay caga iyo Sociedad barnaamijkii sport ee khayr